Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Walaalayaal dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii imtixaanaha ahaa ee ugu talagalay barashada afka Soomaaliga kaasoon ugu talagalay ama aalaba aan u diyaariyo ubadkeena Soomaaliyeed ee ku dhashay ama ku barbaaray waddanka dibaddiisa. Barnaamijkan isaga ah ee aan rabo caawa halkan inaan ku diyaariyo ama aan rabay halkan inaan ku soo gudbiyo waa barnaamij gaar ah oon ugu talagalay inuu ka baxo TV-ga localka ama maxalliga ah ee la yidhaaho KTV kaasoo ay dadweynaha degan magaalada Mankero, North Mankero, St. Peter ay kala socon karaan barashada af Soomaaliga. runtiin waxa waaye waa ilaahay mahadiis muddo badan ayaa daba socday inaan local TV-gaas ama TV-ga maxalliga ah aan ka helo saacado aan ku baahiyo barashada af Soomaaliga si ay uga faa'iidaystaan cid allaale ciddii fursad u hesho barnaamijka isaga ah ee ka baxaya TV-ga. waa ilaahay mahadiis, waa ilaahay bay mahad u sugnaatay. waan ku guulaystay oo waxaan helay ilaa iyo sitimaankii ilaa iyo 4 saac ayaan helay, ilaa iyo 3 saac ayaa helay. hadda 2 saac ayaan ku bilaabay. waxaan lay ballan qaaday in lay kordhi doono iyadoo ay ku xiran tahay dadweynaha si ay u xiiseeyaan. marka haddii aad haysto adeega ama kebalka jaarar waxaad kala socon kartaa barnaamijka janalka ama danabka ama qulqulka ah 181. haddii aad haysta adeega Eventis X Hightag waxaad kala socon kartaa janal eber 7 ama 5 eber 7 HD. mar kale aan ku celiyo, haddii aad haystid kebalka ama adeega jaarar waxaad ka fiirsan kartaa janalka 181. haddii aad haystid adeega Eventis X Hightag waxaad ka fiirsan kartaa janalka eber 7 ama HD 5 eber 7. maalmaha uu barnaamijka baxayo waa 3 maalin ee soo socoto. soo roge oo ah maalinta sabtiga ah, leanna waxaan ognahay sabti inay tahay carabi, laakiinse Soomaaliga saxda waa soo roge oo sabti ah 6:15 fiidnimo ilaa iyo 7 fiidnimo. koobin oo ah axad barnaamijku wuxuu bixi doonaa 7:15 ilaa iyo 8 fiidnimo. lamin oo ah isniin barnaamijku wuxuu bixi doonaa 8 fiidnimo ilaa iyo 9. runtiin waxa waaye waa barnaamij imtixaano ah. cashir kastana wuxuu socon doonaa 30 daqiiqo. marka waxaan ugu baaqayaa ama aan ka codsanayaa ama aan leeyahay waalidiinta ugu faa'iideeya ilmihiina barnaamijkan isaga ah. runtii waa barnaamij aad iyo aad u qiimo badan oo runtii tixgelintiisa leh, waana fursad eebbo na siiyey marka inaan ka faa'iidaysano ayaa habboon. marar badanna waxaan ku celiyey barashada afkaagu waxa weeye waa barashada dhaqanka. marka haddii ilmaheena afkeena ay bartaan macnihii waxay tahay waxaa daba yaalla ama daba socdo barashada dhaqanka Soomaalida, dhaqankeena. halkan waxaan idinku qoray farqalaad hamoodin carabku qaldi maayee sidii caanaha qulquriyay. oo runtii taasi ay qeexayso in ummad waliba ujeedada ay leedahay ay ku gudbisan karto afkeeda. marka annaga haddaan Soomaali nahay afkeena waa af hodan ah, waana midka keliya aynu ku dhangi karno. macnaha sidaa daraaddeed waa inaan ku dhiirigelinaa ubadkeena dhammaan inay bartaan afkooda hooyo, sababtoo ah isaga ayay ku gudbi karaan ujeedada
iyo danta ay leeyihiin. waatii soomaalida hore ugu tiri biyo sacabadaada ayaa looga dhargaa. maanta waxaan bilaabayaa dhowr cashir oo isku xiran, kadibna cashirada waxay noqonayaan imtixaano. intaan cashirada bilaabin waxaad ku soo dhowaataan heestan iyada ah oo ah heesihii waxbarashada, dhiirigelinta waxbarashada ee qaadi jirtay kooxdii iftin. kusoo dhawaada walaalayaal iyo la socod wacan barnaamijkii anuu magac daray bar ama bara habdhicisada oo ahaa quruxda af soomaaliga, the beauty of Somali language. ballanteenu waa 100% buugga iyo qalinka in lagu baratamaa. dhegeysta waxaa kusoo dhawaataan cashirkii ugu horeeyey. cashirka ugu horeeyo cashirada imtixaanaha ee ugu talagalay caawa waa xarfaha af soomaaliga. xarfaha af soomaaliga tiro ahaan waa 32 xaraf, inkastoo dadka badanaa ay sheegaan 31 xaraf, laakiinse badanaa lama sheego hal xaraf oo xaraf ahaan loo xisaabo, laakiin waxaa la yidhaahaa firgin ama afka carabiga lagu yidhaahaa hamza. afkaas marka firginkaas wuxuu ka mid yahay shibanayaasha ayaa lagu tiriyaa, waana qayb ka mid a shibanaha. 31 kale ee harsan waa 21 xaraf oo ah shibane iyo 10 xaraf oo ah shaqal. shibane afka ingiriiska waxaa lagu yidhaahaa consonant. marka hore waxaan akhri doonaa shibanayaasha. hadduu alle idmo cashir dambe oo goori ayaan kusoo qaadan doonaa firginka iyo faa'iida uu leeyahay adeegsigiisa marka wax la qorayo. waxaan bilaabayaa akhriska shibanayaasha. la socod wanaagsan. ba, ta, ja, xa,
da ra sa sha da a ga fa qa ka la ma na wa ha ya aan ku celiyo ba ta ja ha qa da ra sa sha da a ga fa qa ka la ma na wa ha ya shaqalka ama shaqal vowels ayaa lagu yiraahdaa afka ingiriisiga shaqaladu waxaa loo qaybiyaa laba qaybood shaqal gaaban iyo shaqal dheer shaqal gaaban wuxuu noqonayaa sida a e i o u aan ku celiyo a e i o u shaqalka dheerna wuxuu u dhacayaa sidan iyada ah a e i o u aan ku celiyo mar labaad a e i o u dhegeysta waxaan filayaa intaas inay nooga filan tahay barashada xarfaha af soomaaliga halkan hoose waxaa ku yaallo oo waxaa jirta buug aan ka diyaariyey xarfaha af soomaaliga iyo sawiro iyo ereyo la socda oo ka turjumaya sawirada waana buug yar oo ka kooban macnaha ilaa iyo 12 bag ama 14 bag ka kooban kaasoo ugu talagalay ubadkeena inay ka faa'iidaystaan buugga marka waa bilaash wuxuuna hordhacayaa buuggan isaga ah waa kale oo ugu talagalay xoojinta barashada af soomaaliga buugtaas weli gacanta ayaan ku hayaa waxaana ka mid ah buug aan u bixiyey qaamuuska af soomaaliga ama diiwaanka sawirada af soomaaliga marka buuggan isaga ah aan ku magac daray bar ama baro ciddii danaynayso ama u baahan inaan usoo diro sawiro ama copy electronic ah oo pdf ah wuxuu igala soo xiriiri karaa emailkayga ah halkan ku qoran fanax58@gmail.com marka kadibna waxaa iisoo diri doonaa cidda iga soo codsato asoo pdf ah cashirka noo xiga waa israaca shibane iyo shaqal oo sameynaa cod lagu magacaabo alan shibane shaqalka markay isku tagaan waxay sameynaan codkaasi waxaa la yidhaahaa alan barnaamijka waxaan cinwaan ugu dhigaa sida badan quruxda af soomaaliga the beauty of Somali language bar ama barane way barbar socotaa oo kama harto maadaama uu ku saabsan yahay cashirkan labaad israaca shibane iyo shaqal halkan waxaan ku diyaariyey weero isku xiran oo runtii macno weyn ii sameynayo adinkana idin samayn doono insha allah shibanuhu maciin ma leh hadduu shaqalku maqan yahay waa laba mataano afka maamulaayee muujiyaa shaqaladu shibanuhu maciin ma leh hadduu shaqalku maqan yahay waa laba mataano afka maamulaayee muujiyaa shaqalada marka weedhan aan soo qaatay waxay ku tusaysaa shaqalka iyo shibanaha marnabo inayna kala maalmin aad iyo aadna muhiim ay u tahay in la muujiyo labadaba israaca shibane iyo shaqal dhawaqa sidan ayuu noqonayaa mar waxaan soo qaadanayaa shaqal gaaban marna waxaan soo qaadanayaa shaqalka dheer laakiin shibanaha wuxuu noo noqonayaa hal xaraf oo isku mid ah ba be bi bo bu ba be bi
bo bu ta te ti to tu ta te ti to tu ja je ji jo ju ja je ji jo ju ha he hi ho hu 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 da de di do du da de di do du ra re ri ro ru ra re ri ro ru sa se si so su sa se si so su sha she shi sho shu sha she shi sho shu da de di do du da de di do du a e i o u a e i o u ga ge gi go gu ga ge gi go gu fa fe fi fu fu fa fe fi fo fu ha he hi ho hu ha he hi ho hu ka ke ki ko ku ka ke ki ko ku la le li lo lu la le li lo lu ma me mi mo mu ma me mi mo mu ka 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 la la ma ma na ne ni no nu na ne ni no nu wa we wi wo wu wa we wi wo wu ha he hi ho hu ha he hi
هو هو يا ي ي يو يو يا ي yi yo yuu dhegeystaasi waxay israaca shaqalka iyo shibanaha oo shibanaha soo horeeyey shaqalkana ugu dambeeyey haddii aan rabno waxaan samayn karnaa inaan soo hormarino shaqalka dhawqan wuxuu noqonayaa sida tan aq ek iq ok uq aaq eeq iiq ooq uuq ak ek ik ok uk aak eek ik ok uuk al el il ol ul al el il ol ul am em im om am em im om daawadayaal walaalayaal qaybta hartay ee isdhaafiska ama kala wareejinta shaqalka iyo shibanaha inta harsan waxaan idin dayay adinka inaad macnaha tababar ku siisaan leelis ahaan aada u siisaan ilmihiina si ay carabkooda uga qabsado dhawaaqa isku tagga shaqalka iyo shibanaha ama shibanaha soo horeeyo oo shaqalkan dambeeyo ama shaqalkan soo horeeyo oo shibanaha dambeeyo cashirka kale ee aan rabo caawa inaan kusoo gabagabeeyo barnaamijkeenan isaga ah waxa waaye isku xirka laba shibane iyo shaqal taasoo ah laba shibane ayaa waxa dhextaal u ah shaqal dheer ama shaqal gaaban runtiina waxa waaye waxaa ku jira ereyo badan oo sameynaa macno iyo kuwa macno aan sameynin intaba laakiin ujeeddada aan ka leeyahay cashirka isaga ah wuxuu yahay waxa la yidhaaho carab jalqin ama carab fuudeyn ilmaha carabkooda inuu la qabsado dhawaaqa isku tagga laba shibane iyo shaqal cashirkana wuxuu dhacayaa sida tan bab baab beb beeb bib biib bob boob bub buub tat taat tet teet tit tiit tot toot tut tuut jej jaaj jej jeej jij jiij joj jooj juj juuj xah xaax xex xeex xix xiix xox xoox xux xuux qaq qaaq qeq qeeq qiq qiiq qoq qooq quq quuq dat daat det deet dit diit dot doot dut duut rar raar rer reer rir riir ror roor rur ruur sas saas ses sees sis siis sos soos sus suus shash shaash shesh sheesh
shish, shiish, shosh, shoosh, shush, shuush, dad, daad, det, deed, dit, diit, dot, dood, dut, duut, a, aa, e, e, i, a, o, u, gek, gaak, gek, geek, gik, giek, gok, gook, goek, goek, faf, faaf, fef, feef, fif, fief, fof, foof, foef, foef, qaq, qaaq, qeq, qeeq, qif, qiiq, qoq, qooq, quq, quuq, quq, quuq, kek, kaak, kek, keek, kik, kiek, kiek, kok, kook, koek, koek, lal, laal, lel, leel, lil, liil, lol, lool, lul, luul, mam, maam, mem, meem, mim, miim, mom, moom, mum, muum, nan, naan, nen, neen, nin, niin, non, non, noon, nun, nuun, wow, waaw, wew, weew, wiw, wiiw, wow, woow, wu, wuu, ha, haa, heh, hee, hih, hii, hoh, hooh, huh, huu, yey, yaay, yey, yaay, yey, yeey, yi, yii, yoy, yooy, yuy, yuuy. dhegeystayaal barnaamijkeenii isaga ahay oon ugu talagalay barashada af soomaaliga caawa intaas ayuu nagu egyahay intaan ku kulmayno barnaamijkan oo kale ah hadduu allah awoodooda ogaado waa macalin fanax oo ida leh kursi dambo oo xiise leh iyo la socod wanaagsan asalaamu calaykum waraxmat ullah wabarakaatu